في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا. يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى. صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا. يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى. يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى. فوق السهول وبالجبال وبالقرى. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. weli waxaan ku dhex jirnay acmaalaha ama asbaabaha qofka jannada geliya. waxaanu soo tilmaamay iimaan iyo camal saalix ah inay ugu horhoreeyaan asbaabaha iyo qofka camalada jannada uu ku galo. 3 waxaanu soo tilmaamay taqwadii alla ka cabsigu inay safka hore kaga jirto qofku inuu jannada ilaahay galo subxaana wa tacaala. 4 waxaanu soo sheegnay oo aan soo tilmaamay ilaahay iyo rasuulkiisoo la maqlo oo la ateeco oon warkooda laba madax taagin oo aan laga kibrinna inay ka asbaabaha qofka jannada gelisa. waxaan soo tilmaamay 5 ka soo dhignay tawbada iyo in ilaahay subxaana wa tacaala loo soo laabto. dembi haddii qofku uu galo, waxyaabo xumaana ay ka dhacaan, haddii uu simbirraxdo, haddii uun ay dhacdo inuu shaytaan sirana, inuusan ilaahay weli nicin qofka, laakiin loo baneeyey inuu dembiga ka soo noqon karo, ilaahay u soo laaban karo. dadka jannada loogu talagalayba waa dadka intay xumaan iyo faaxisho sameeyaan haddana ilaahay u towba keena. ilaa man taaba wa aamana wacamila saalixan fa ulaa'ika yadkhuluuna aljanna walaa yudlamuuna shay'a. qodobka 6 wuxuu noqonayaa alistiqaama calaa diini illaahi, waa qofku inuu ku toosnaado diinta ilaahay. istiqaamadu waa shay muhiim ah, laakiin ilaahay qofku siiya. qof kasta iskama helo. qofaasuu u fiican yahay ilaahay nooma kasee ciribta dambuu inxiraafaya. istiqaamadii buu ka leexanayaa, jaranjaradii buu ka dhacayaa, kadibna cadaabkuu ku hoobanaya. qofaa xun oo diin aan ku dhaqmin, salaad aan tukan, laakiin gebagabadiisuu hagaagaya. istiqaamuu qabsanaya, jid toosan buu ku soconaa. markaa kadib buu jannadii ilaahay gelaya subxaana wa tacaala. ilaahay baa istiqaamo laga baryaa, ilaahay inuuna toosiyaa, ilaahay la weydiistaa subxaana wa tacaala. istiqaamo hadduu qofku waayo oo laga dhumiyo, khayr ilaahay agtiisa kuma laha. rabbi kitaabkiisa wuxuu ku yidhi: ina aladiina qaaluu rabbuna allah, kuwii yidhi rabbigeen waa allah, uma istaqaamuu, haddana toosnaaday, xaqii iyo diintii bay ku toosnaadeen, amarka alla raacitaankiisii bay ku toosnaadeen, wixii rabbi u diray bay ku toosnaadeen, falaa khawfun
عليهم ولا هم يحزنون كوا خوفي عبسي كركودا معها من مرقونيان كعبسا مايان ماشي أسعبان كمرقون مايان ماشي كتغيان أولئك أصحاب الجنة وجنة أصحاب تودا كوا استقامة ليمت كتوصل هذا ربي الله مركي دهين ماذي أصحاب أيهين خالدين فيها وين قد حواريان دارتان او كلمها او حتى ددك قبل كميد اي كغارتا مرء يا كاودا دد وحي كغارتا نفتا يا مركا قادا اريريغا iyo dibka mashaakilki rafaadka ay la kulmeen sababteeda dada isdaldala dada isdila dada sulcada laakiin daarta xagga sida ma aha ulaika ashabul janna khalidin fiha jazaan bima kanu ya'malun wa abal gud waxa loogu abal gudaya wixii ay sameeyeen ayuu dhahay ila subhanahu wa ta'ala hadaba istiqaama wa asbaab ama waa sabab kamida asbaabaha qofka jannada gelisa sida ilaahay tilmaamayba ulaa'ika asxaabul janna ninka lagu magacaabo Sufyaan ibn Abdullah al-Thaqafi ayaa wuxuu yiri rasuulka waxaan ku iri qulli fil islaam qawlan rasuulka Allah orah ideh qawl ideh oo qof kale aan weydiin adigadaasha markaad ii sheegto horay aan ka fahmo aanideeda qalbigeyga uu ku dego qof kale inaan u taga aan dhaho maxaa laga wadaa aaman dhihin gadaasha qawl noocaas ideh rasuulku wuxuu yiri آمنت بالله وحط هذا إلهي بان رميي ثم استقم كدبنا توسمو أو حد كنت توسماتا آمنات لآد آمنتي استقام ومهيم استقام وشي خير بابا توسمانت ووح آدية مهيم توفيق إلهي قوة فجية استقامة ليرى هذا نبي وحو يري وحا عريسي oo iga soo saartay Huud iyo walaalaheed oo waxa rasuulka Huud lagu yiri fastaqim kama umirta sidii lagu amray utos rasuulka Allah sidii lagu amray ha ka leexanin rasuulka Allah waxaad ku socotaa istiqaama iyo toosnaasho fastaqim kama umirta sidii lagu amray utosmow aayada kadib ayay ciraysay buu yiri taasa iga soo bixisay saan uga murgaayay oo uga fakaraayay oo ayadoo dhan aan u lahaa ma ku socotaa iyo in kala maya taasa ay ciraysay buu yiri nabiga aayad ilaahay baa ciraynaysa anagu xoolo laga fakaraan cirayso naga soo saartay murug adduun baa saa naga dhigtay arimooyin fara badan baa saa ahayde dadka hore waxay la ciroobi jireen waxay ahayd ka fikirka aakhiro waxay ahayd ka fikirka mutaqaana istiqaamada ka fikirka waxyaabaha diintu ay qabto inay ku socdaan iyo in kale taasi aad uga fakari jireen bacdama xaaladu saa ay tahay istiqaamada والله ممار إلا توسماد جنة الله لغو قلا إلا توسماد جنة إلهي لغو متيستا إلا الله إيلانين الله لحننا إلهي جنة ديسا مركا لغو هلا والله استقاموا على الطريقة لأسقيناهم أن غدقا بدكو قد كنت الله haddii ku toosnaan lahaayeen dariiqa saxa haddii ku toosnaan lahaayeen dariiqa islaamka haddii ku toosnaan lahaayeen jidkii dariiqii nebi Muhammad oo alla istaqaamu cala dariiqa dariiqada haddii ku socon lahaayeen la asqaynaahum ma'an ghadaqa biyo oo dhibco waaweyn roob oo fara badan oo nabaad soo bixiya oo kuleelka ka tirtira oo nabaad ay helaan oo ay ku raaxstaan oo ay abaartanba ku arkin ayaan ku waraabin lahayn siina lahayn buu dhahay ila subxaana wa tacaala wa an law istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maa'an ghadaqa linaftinahum fiihi intaana waxaan u samayn lahayn inaan ku imtixaanno waman yucrid can dikri rabbihi yaslukhu cadaaban sacada qofkii istiqaamada ka leexda dikriga alli wacdiga alla ka leexda waman يعرض عن ذكر ربه كاسي وحان قاد سينينا هدو جدكي استقامة ديلي جدكي الله يبوهي او ديلي لأس وحان قلينينا جهنم بوضاي إلى سبحانه وتعالى لا أسقي بوحو إلهي تلمامي حدي أي كجيستان ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا عذاب مشاقب بضا أو دب بضا أو فولد بضا أو رفاد بضا أيان قلينينا ساسو إلهي تلمامي سبحانه وتعالى هبضا أن نقول أمد استقامي سن
maalina waa tukanaa maalina waa ka hurdnaa maalin ilaahaan xusnaa maalina waan heesnaa maalin ilaahay ayaan barinaa maalina shaydaan baan u dhowaanaa istiqaamo saa ma aha istiqaamadu qofku khayrkii wanaagiisiisaa rabbi amarkiisay ku socodsiisaa wixii alla diiday ka reebtaa saasaa istiqaamo toosnaasho ah oo horumar iyo wanaag lagu gaaraa adduun iyo aakhirana ilaahay qofku ku hormariyaa subxaana wa tacaala waan low istaqaamuu cala alariiqati la asqaynaahum maa'an gadaqan linaftinahum fiihi ومن يعر ربه يسلكه عذابا صعدا عذاب مشقة له والصعد كوحلو لجيذا إبضا كاسا مركا لقلينيا عذاب حالكي سسايهي يا إلهي كؤبا المرنى سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه سي إلهي امتحان سبحانه وتعالى oo taasaa wuxuu ilaahay siinaa laftigeeda imtixaan roobkii yimid xoolihii la helay nabaadkii waxyaabihii ilaahay siiyey dhammaan waxay ku noqonayaan sida ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala mid imtixaan ku ah ayaga xaggooda oo lagu imtixaamayo oo dhib iyo mashaakil ay ku marayaan xaalkiisu saasuu noqonaya qofkii raba in ducada laga ajiibo oo rabbi baryihiisa aqbalo istiqaamaa laga rabaa asagana inuu diinta ilaahay ku toosnaado subxaana wa tacaala wa awxaynaa ilaa muusa wa akhiihi waxaan u waxyoonay muuse iyo walaalkii an tabawa'a liqawmikumaa bimisra buyuutan qownkiina masr guryo uga dhisa meel ay degaan uga sameeya wajcaluu buyuutakum qibla guryihiinana qibla ka sameeya qiblo macnaha waa meel lagu tukado masaajida u sameeya meel ilaahay lagu caabudo u sameeya guryihiina wa aqiimu asalaa salaadana ooga wabashir ilmu'miniin mu'miniintana u bishaaray buu dhahay ila subxaana wa tacaala nebi muuse walaalkii haaruun baa loo waxyooday qoomkooda inay degaan u sameeya inaan la hilmaamo u tukanloosto subxaana wa tacaala guryaha qaybo kamida in lagu tukadaa fiican dumarku inay guryaha ku tukadaana fiican ragga mararka gobol kamida xataa guryaha salaha sunnada inay keenaan baa fiican waayo salaad la tugto waxa u fadli badan salaadaha guryaha lagu tukado ilaa waajibaadka maahane waa ragga marka la tilmaamay amaa dumarku waxa u khayr iyo wanaag badan inay guryahoodu ku tukadaan wajcaluu buyuutakum qibla meel qibla ah oo rabbi lagu caabudo oo loo jeesto guryihiina ka sameeya wa aqiimu asalaa salaada ooga mu'miniin wuxuu dhahay nebi muuse rabbiyow waxaad siisay fircoon iyo madaxweyntiisa ziine iyo qurux iyo maal xoolaha adduunka ah idan hanti badan baa la siiyey heer wuxuu gaaray uu faano heer wuxuu gaaray uu yidhaahda am ana khayrun min hada aladii huwa mahiin walaa yakaadu yubiin wuxuu gaaray heer uu yidhaahdo fircoon asagoo nebi muuse heedaartaynaya am ana khayrun min hada aladii huwa mahiin walaa yakaadu yubiin falowlaa ulqiya calayhi aswiratun min dahab aw jaa'a macahu almalaa'ikatu muqtariniin maxaa intaasoo dhan ka horaysay waxaa intaa ka horaysay inuu qoonkiisii ku furays waxyaabo fara badan oo wuxuu sameeyey ah oo markaa u tilmaamay wuxuu yidhi yaa qawmi alaysa lii mulku misra war masar oo dhan boqortinimadeesoo ani malihi soo iima jeedaan awoodayda iijaaha aan leeyahay qoomkeeyow alaysa lii mulku misr wa haadihi alanhaaru tajrii kuwani webiyaalo waayo hoosteeday qulqulayaan way dareerayaan afalaa tacqiluun xeebtuu meel sare intuu ka dhistay yuu ku tuntaa hoosuu webiyaalo ka jeexo midna caana ku shubay midna malab ku shubay midna biyo ku shubay midna khamro ku shubay uu yidhi wahaadihi alanhaaru tajrii min taxtii afalaa tubsiruun am ana khayr ma anaa fiican mise midkaan mahiinka ah daciifka ah dulliga ah nebi muuse ula jeedaa xataa aan hadal cad ku hadli karin idan carab jiq buu qabay nebi muuse oo carabkuu kashi yahay waxoogaa saa darteed buu leeyahay walaa yakaadu yubiin falowlaa ulqiya calayhi aswiratun min dahab jijimooyin dahab muusoo gashto
hadduu fiican yahay, hadduu khayr leeyahay, heerkaa wuxuu gaaray inuu ku faantamo xoolaha adduunka, wuxuu gaaray inuu ku faantamo wax allaale wixii ilaahay siiyey. markaasuu dhahay muuse maa lagu soo rida korkiisa jijimo oo dahab ah, aw jaa'a macahu almalaa'ikatu muqtariniin fastaqafa qawmahu faataacuuh. wuu caqli gororsaday, wuu caqli fududaystay, qoomkiisii way ateeceen, faasiqiin bay noqdeen buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. markayna carageliyeenna waan ka arsanoo baddaan ku maashaynay. taasuu nebi muuse ula jeeda. markaasuu leeyahay waqaala muusa rabbanaa inaka aatayta fircawna wamala'ahu ziinatan waamwaalan fi lxayaati addunya. ilaahu maxaad u siisay? rabbanaa liyudiluu can sabiilika, jidkaagay dadka uga dhuminayaan. ee rabbana tumis calaa amwaalihim, allow tirtir maalkooda, washdud calaa quluubihim, qalbiyaalkooda xir oo adkay, falaa yu'minuu xataa yaraw alcadaab alaliim, ilaa cadaabka xanuunka badan ay ka arkaan. ilaahu yaysan markaa rumaynin. markiis ay dhacday oo arrintaa uusaa nebi muuse u habaartamay, ilaahay muxuu yidhi qaala qad ujiibat dacwatukumaa, baryihiinii waa la aqbalay, baryihiinii waa la ajiibaye, fastaqiimaa, toosnaada, jidka ilaahay iyo diinta ku toosnaada. maxaa loo yidhi qad ujiibat dacwatukumaa? nebi muuse keligiisaa baryaha ilaahay baryey oo qoomkaa ilaahay ummadqaana habaaray. maxaa loo yidhi marka labadiina? waxaa dhici karta inuu muusena ducaynayey, haaruunna uu aamiin dhahayey. labadna midaday u duceeyeenay, midna habaaray, midna u aamiiniyey. maxaa ka soo haraya? waa ma jirto. qaala qad ujiibat dacwatukumaa, baryihiinii waa la ajiibay, fastaqiimaa, toosnaada. haddaad toosnaan weysaan ducadaa laydinku soo celin, haddaad toosnaan weysaan laydinka ajiibi maayo, haddaad toosnaan weysaan khayrkii wanaagga laydin waafajin maayo, haddaad toosnaan weysaanoo istiqaama laydinka waayo, alla agtiisa qiimo kuma lihidiine. fastaqiimaa, muuse iyo haaruunoo toosnaada, walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun, dadka aan cilmiga lahayn jidkoodana ha raacina, ha isku dabagelina, ha ku dhansfaylina. waxay samaynayaan iska ilaaliya, wax allaala wixii xumaana ka fogaada. xaaladaasuu marka ilaahay u tilmaamaya subxaana wa tacaala, ee uu leeyahay ogaada haddii istiqaama laydinka waayo ood istiqaameexad oo aad tunaan weysaan, allagtiisinaadan qiimo markaa ku lahayn. haddaba qofka muslimkaa wuxuu wanaag ku yeelan karaa inuu istiqaamoobo, inuu toosnaado, inuu ilaahay amarkiisa fuliyo, inuu wuxuu ilaahay u dirayo sameeyo. sida nebiguba ninka uu kula dardaarmay uu yidhi qul aamantu billaahi, ilaahay rumey, uma istaqim, kadibna toosnow. ilaahay la rumeeyey oo aan salaadiisa la tukan, istiqaaman moodnaa maanta. ilaahay oo la dhaho waa rabbigeen, wuxuu diidayna loo gabaal maro, istiqaaman u malayna oo dada istiqaamo u haysta. istiqaamadu waa inuu qofku toosnaado, ma aha inuusan dembi ka dhicin oo wuu ka dhici karaa. kullu bni aadam khata' saan soo marnayba qodobadii towbada markaan soo hadlaynay. bani aadam dhammaantii waa khaldane, waa gefe, waa gefbadne. inta khaladana inta soo laabataa u khayr badan, istiqaamana la timaada toosnaantii khayrka ku dadaasha. waana haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuh, kani waa jidkaygii mustaqiimkee raaca buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. walaa tattabicu subula, kala baxbaxaaya oo naarta iyo xumaanta iyo macaasidii waxyaabaha kale idinkugu wacayaan, ha aadaadina. saa darteed buu rasuulku intuu qori soo qaatay iyo dhulku saa ugu xariiqay, wuxuu jidka ilaahay ee mustaqiimkee toosan waa kana. midka raba inaad u istiqaamowtaan waa kana. midka khayrkii wanaagga idin gaarsiin kara waa kana. waa tusaale khad dheer buu ja u xariiqay, xariiqyo yaryar ah yuu geesaha ka bixbixiyey. markaasuu dhahay kuwaanna waa subushii iyo jidadkii shayaadiintu ay taagnaayeen. haddaad u jiibtaan ood u leexataan oo jidka mustaqiimkeed ood ku socotaan aad dhinac uga leexataanna mar kasta way idin wacayaan.
وإذن أجيبيان وحي ربان إناد أجيبتان إسكا إلالية كدغ فريست إجيبك مستقيم كي توصن كالصعبة مد كان هدنا عمرنا مد كان هكالي حانينا مد كان قطوس ماذا كالصعبة حالتا سومرك النبي بأط المامي سادرتين أيو أمد أشيغي إلي دعادران دعاداسو أبواب جهنم هاجا وإذن سعد هالينايان وإذن وعيان هأجيبنا قفكي أجيبنا نارتي كتوريان سادرت بي صحابة بهين نصفي ددك سيئي على رسولك إلهي مقاركي نوكلي ليهين بويري سادوها بشان أوكلي أهدليان wax allaale waxa aad idinka samaynaysaan oo kale samaynay intaad iska ilaalin kartaan iska ilaaliya walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun dadka cilmiga leh oo ilaahay aaminay oo khayrka ku socda warkoodii jidadkooda raaca oo kuwa jidadkooda iska ilaaliya waman yushaaqiqi arasuul min bacdi ma tabayana lahu alhuda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا بوضع الله سبحانه وتعالى قفكي بنعمر وخلاف النبي محمد وقيس مرة ومن يشاقق الرسول وقرمي من بعد ما تبين له الهدى مركو هنونك وعضاضي ودينتي لو بياني وحتى وصل له شيء جدك مستقيم كاللو عدي كذب من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين مؤمنين تجدك أي مرين أي استقامة لها أي توسمة أي جنة الجينة يجد عن أهين حتى مران ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وحي ولي أكدك تولي لوغدقا وحي أجعل هذا لجعل السينيا وحي دينتها أي أونعي أي أكلحظي كاسا ولي لوغدقا ونسليه جهنم نارت جهنم وانجلسي نابو إلى ساءت مصيرا من لا أهادنا جهنم مركتا أغحن هطبا استقامة وحي كمتها حسان صوت المامي علامة دليل أنه قنكرتا قفك إنه دخوله أي أوغل جنة إلى سبحانه وتعالى قفك إنه رب أمر كيسا قصعه أو استقامة ليماذا وعلامة شعار كمتها إنه إلهي دينتي سقاطي طاعة الله أكد ذالي جنة أمركا جلدان قل آمنت بالله إلهي آمني به ثم استقم كدب ما توسمو استقامة وحي كفصرين دادكي هوري غيب كمتأه قفكو مركو إلهي رمايو إنو دينتا كتوسماو إنو سن إعواج يقلقلع مركا جلين وسن أسعى سيدا وعضا أسعى أوكالي ويجب توسن كمسعى ساسي إلا حليحتا مركا دين عبي مركا إلا حتا ساسو كالها سمينيه ستوسن مركا أسعى وستوسن مركا دينتا أقاطا وستوسن مركا إسلامك آمنة وإذنكو من إسلامك وبقلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان شيطان خطوات كيسي تلابوين كيسة جدد كيسي ميلا وجحجح أمرنا ساسا إلهي تلمام وتعالى ساسا إلهي تلمام يا إلى الاستقامة بأدبي أفي عنتها وفكاهي استقامة أرزق خير بال لو أرزقي قفك إلهي استقسي ونال بال لسي استقامة آدي هلو قد ذلك ربي هلا حشوض خيرك إيا طاعة هلا طبيعة ربي أكتيس عزي إيا شرف إيا مطمان إيا وحقير بضن لو هلا استقامة مركا لو هلا إلهي أولو توسنادو دينتيسي لو توسنادو أيا مركا لو قارا حالتا مركا آدان ربضين وأن نقول أمطع على إلهي كدلاشا وأن نقول أمد أوامرت إلهي الضبسا استقامة تتهل أدي إيران بذنين استقامة تتهل أوغارة أدي فركوترس أيهيني قفل بو استقامة كدلال إلهي محيي سبحانه وتعالى أصبتنا أما سقفك مسلم كأ استقامة وطلبها دائما وأبدا مركاسا ركعة والبا وصلاة كمته وحو كد عستا إنه إله استقامة سيء وحولي إهدنا الصراط المستقيم إله جدك استقامة سنة مستقيم كيف توصلنا بهنين جدك مستقيم كان الربنا جدك مستقيم كالرب وهنجل حين حالة سي مركا ليه إله محير فاستقيموا إليه
واستغفروه وويل للمشركين والاستقامة الله إمادوا إلهي التصناب فاستقيموا إليه كدبنا واستغفروه بانبداف إلهي كد البضع إلهي سبحانه وتعالى وحويل عذاب سينيا ضدك مشرين تركا قدنيني اتق الله حيث ما كنت وحيث المام سالفتي إذا استقامة وإلهي وحودا واتبع السيئة الحسنة تمحوها حمان هديك بعد وناك رأسي واستقامة وكاتر تريساي رسولك وحوي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا ثوابت اللازمة سيدا في عن ثوابت مركا اللازمة سوء الدوية او دلالة او سيدا طاعة دينتو ايتا اسود الدوية سيدي للرب كل مكيني كرتان sidii loogu talagalay qofku lama imaan karo sidii la rabay qofku maba keeni karo boqolkiiba boqole bal soo dhaweeye falidaalika fadcu wastaqim kama umirta taa diintii tawxiidka dadka ugu wacbuu yiri ilaa subxaana wa tacaala wastaqim kama umirta sidii lagu amrayna utoosnoo buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala saa darteed baa qofka muslimka ah mar walba inuu istiqaamada ilay ka dalbado istiqaamada ilaahay uu weydiisto waxay u noqonaysaa shay aad iyo aad u muhiim ah ilaahay asagoo noo tilmaamayo qur'aanka inuu istiqaamo qofka siiyo nuurkaa qofkii raaca ayuu kitaabkiisa ku yidhi qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin ilaahay xaggiisa waxaa idinkaga yimid nuur iyo kitaab mubiin ah yahdii bihi allah man ittabaca ridwaanahu subula asalaam wayukhrijuhum min alظulumaati ila annuuri biidnih wayahdiihim ila siraatin mustaqiim inuu idin yimid ba xaqiiqa ah alla xaggiisa nuur iyo kitaab mubiin ah wuxuu dadka ku hanuuniya ama qofkii raaca raadi ahaashadiisa jidka salaam ee toosan wuxuu ka bixiyaa mugdiyaalkoo nuurkuu u bixiyaa ilaahay idinkii wuxuuna ku hanuuniyaa jidka mustaqiimkee toosan waxyaabaha khayrkii wanaagaa walaalayaal aad iyo aad aan u dadaalno aan noqona dad istiqaamada ku dadaala noqona dad subxaana ka dalbada oo ka barya in istiqaamo lagu arsuqo toosnaan ilaahay ku arsuqo khayr iyo wanaag ilaahay ku arsuqo qof allaala qofka ilaahay rumaysan maalinta aakhiro rumaysan khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso istiqaamay keeni kartaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khutuwaati shaytaan shaytaanka jidadkiisa ha raacraacina waayo waman yattabic khutuwaati shaytaan fainahu ya'muru bilfaxshaa'i waalmunkar labadaabuu markaa amraa ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu تتنزل عليهم الملائكة ملائكة كركوذا كسو دكتا ملائكة كسو دقيسة ألا تخافوا ولا تحزنوا عبسنين هنا مرقونين وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون جنة الذي يبوهي والذي بلن قاضي حتى استقامة التي ما ظن كب بشاريستا أي مركان له بهايا محيكو هلين بشارة جنة أهوى استقامة محيكو قارن وإتصماشو محيكو قارن إله الدين تيسي كتسمعين maxay ku gaareen istiqaamada ay la yimideen idan istiqaamadu waxay noqotay shay qofka u dhaweeya ilaahay sababtiisan uu kugu galo jannada rabbi subxaanahu wa tacaala ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu tatanazzalu calayhim almalaa'ika waa goorme wa cinda sakaraat allaa takhaafuu ha cabsanina ولا تحزنوا همرقونين وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم كاغسي درب أنا أولياء ديني وانهي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا حياة الدنيا وفي الآخرة أولياء الكينا نهيبا لوليه جاءت الرضرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة جمع واحد كل ذي وحي نفتي نجع ليسته وح الله لو حد يرتان ضالين سينيا حلب صمرك إلهي تلماما يا سبحانه وتعالى أيضا الله دصائته وحلوبة هي مركة
استقامة إن لقددانو إلى حق وحنك بريا إنه حق النوافجيو طاعة إيو الدين تألم نغصبو إنه إلهي نو أرزق استقامة دبتصنا إنه إلهي نغببو أدوني آخر استقامة هلا سي أي موقف بذاته أسبابتي عمالبا لقو قالو أما الدخول كالجنة واجبية وبالله توفيق والله أعلم.